jawaabtii u dambeysay aqoonsiga dawladda federaalku ay u fidisay maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo dhanka kalena shir ay ugu baaqday maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir haddaba si aan u ogaano mowqifka dhinaca Jubbaland ayaa waxaan la xiriirnay wasiir dawlaha madaxtooyada dawlad goboleedka Jubbaland Xirsigaani oo isna goorsii horeysay iyo warramay waxa jira dastuurka wadanka u yaala oo kala hagaya kala qeexayana awoodahooda cadaynaya qolo walba waxay xaq u leedahay dawlad goboleedka Jubbaland dastuurkeeda iyo dastuurka dawladda federaalka intuba ay qeexayaan doorashada la qabanayo oo dawlad goboleed kasta ay qabanayso in maaragtay ay xaq u leedahay dawlad goboleedku inay iyadu maamusho hay-adaheeda loogu talagalana ay qabtaan doorashooyinkaas waxa xusaya qodobka 120aad dastuurka kumeel gaarka ah dawladda federaalka ah iyo 142 labadaas qodobba waxay si cad u sheegayaan in doorashada dawlad goboleedyadu ay ayagu qabsanayaan ayna isticmaalayaan dastuurka dawlad goboleedka u yaal mana iyadu u xadidi karto xilliga iyo cidda ay dooranayaan reer Jubbaland 2 sano haday tahay iyo 4 sano haday tahay muddo xileedkuna wuxuu ku cad yahay dastuurka dawlad goboleedka Jubbaland oo maartay qodobkiisa 170aad waxa uu qeexayaa si cad u sheegaya muddo xileedka xafiisyada ama hay'adaha la doorto inuu 4 sano yahay mudane waxaan ognahay markii hore dawladda federaalku aysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday Jubbaland ee madaxweyne Axmed Madoobe lagu doortay hadiiba imika wax isbedeleen oo ay aqoonsatay 2 sano oo ay tahay in lagu geeyo xilli doorasho maamulkaas loo qabto oo loo wada dhan yahay maxaa ku jaban maamulka Jubbaland wuu dhisnaa dawladda hadda xukuumadda hadda federaalka oo jirta ka hor buu dhisnaa dawladda Xasan Sheekh asagoo maamul xubin buuxda ka ah dawladda federaalka ah ayuu dhisnaa marka ma awoodi karaan ayaga awoodna uma leh sharciyadna uma leh inay yiraahdaan hala soo dhameystiro 2 sano ku meel gaar soo maray Xasan Sheekh xilligiisii ka bacdina 4 sano oo fuul ah oo xubin rasmi ah ay ka ahay dawladda federaalka ah ayuu soo maray hadda marka ninka intuu yimaado oranaya si sax looma dhisin oo asaguba ka dambeeyay sharciyad uu yeelanaya ma jirto laakiin mudane cidda sidaa u hadlaysa sharciga ama go'aankaas ka soo baxay ma aha shakhsi meel iska taagan waa xukuumadii federaalka iyo madaxweynihii dawladda federaalka oo dabcan maamuladuna ay hoos tagaan miyaana ahayn inaad waxa ka soo baxa dhigu yeelataan sidaan hore kugu sheegay qof shakhsi ama hay-ad federaalihi kama gaari karto go'aan dawlad goboleedka doorashooyinkooda dhismahooda xafiisyada la doorto hay-adaha la doorto kama gaari karaan haddii anigu aan jecelahay haddaana jeclayn hadday jecel yihiin haddayna jeclayn intaba maaragtay waxa xaqiiq ah oo cad inay jiraan dastuur kala hagaya qofkana doonitaankiisa waxba laguma dhisayo wadanka shuruucda u taala ayaa kala qeexaysa oo kala cadaynaysa awooduhu sida ay yihiin warqadda dawladda federaalka ka soo baxday waxay ku sheegaysaa inay raacayso dastuurka u yaala dawladda federaalka idinna weydinka sheegaya inay raacaysaan dastuurka marka ma laba kala dastuur baa idin yaalo kala raacaysaan oo aan iswaafaqsanayn cadeeya oo idinkuba dib ugu noqdo oo dadka Soomaaliyeed ha akhriyaan dastuurka Soomaaliya u yaala waxaan kugu refer gareeyay oo ku sheegay qodobka 120aad ee dastuurka federaalka ah qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah labaduba waxay si cad u qeexayaan dawlad goboleedada xubinta ka ah dawladda federaalka ah hay-adaheeda la dooranayo iyo doorashooyinkooda ayagu inay xaq u leeyihiin ayna ku saleynayaan dastuuradooda inta la dhammaystirayo dastuurka dawladda federaalka taas ayaa kala qeexaysa ugu dambeyn dawladda federaalku sidoo kale waxay maanta ku baaqday kulan ay maamul goboleedada iyo iyagu wada yeelan doonaan kulanka maxaa idinka qorshaa ma ka qayb galaysaan dadaal kasta oo la isugu imaanayo qayb baan ka noqonaynaa oo dhab iyo daacad laga yahay kaasi waxa uu ahaa wasiiru dawlaha madaxtooyada dawlad goboleedka Jubbaland Xirsigaani oo goorsii horeysay iga warramayay mowqifkooda ku aadan warqad ka soo baxday maanta xukuumadda federaalka oo ku saabsanayd in muddo 2 sano ah oo aqoonsi ku meel gaar ah ay siiyeen madaxweyne Axmed Madoobe dhanka kalena ay shir ugu baaqeen maamulada iyo gobolka Banaadir bal haatanna haddii aynu eegno qodobka waxay ka yidhaahdeen qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna jaamac maxamed food oo jooga caynaba wuxuu yidhi waxba soo korin mayso tallaabada ay qaaday dowladda federaalku ee madaxweyne ugu aqoonsatay
kumeel gaadha waayo awalba cidna caad kama saarnayn buu yidhi in Axmed Madoobe yahay madaxweynaha Jubbaland qorshahan ay hadda ugu aqoonsatay madaxtinimada Jubbalandna waxaan u arkaa buu qorshaha ay dowladda federaalku ku sasabanayso madaxweyne Axmed Madoobe dhageysta kale waxa magaciisa la dhahaa Sayid Cumar Cusmaan Cabdullaahi jooga Dhuusamareeb waxa uu leeyahay isna waan soo dhaweynayaa aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay siisay madaxweynaha Jubbaland buu yidhi waayo dalku waxa uu marayaa xilli kala guur ah oo loo baahan yahay wixii khilaaf ah meel la iska dhigo si doorasho loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay buu yidhi ay dalka uga dhacdo dhageysta kale waa Cabdisalaam Ismaaciil Maxamed oo jooga balad xaabo wuxuu dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Axmed Madoobe u aqoonsatay madaxweynaha ku meel gaadhka ee Jubbaland runtii waa aqoonsi dowladda federaalka ceeb ku ah buu waayo dowladdii doorashadii ay hore u qaadacday siday hadda u aqoonsatay buu isweydiinaya dhageystaas